وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. العاقل كل العاقل من عرف الحقيقة، من استعد للموت ولما بعد الموت، من عرف مقصد حياته. العاقل كل العاقل، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. qofka caaqilka qofka dhaqaalaha badanna maaha, qofka adduunyada urursada maaha. الدنيا دار من لا دار له بو النبي قد عليه الصلاة والسلام. الدنيا waxay daar u tahay ninkan aakhira daar ku lahayn. ومال من لا مال له dhaqaalahan adduunyadu wuxuu dhaqaalo u yahay ninkan dhaqaalo aakhira ku lahayn. lahaa yajmacu man laa caqla lahu. adduunyada waxaa ururiya buu nebigu yidhi ninaan caqli lahayn. caaqilku waa kee? waa ninka garta wixii adduunya kii keenay, waa ninka garta kii keenay iyo wuxuu u keenay iyo meesha loo socdo. man akyasu nnaasi wa akramu nnaasi ya rasuula allah. masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam buu nin soo galay, nin acraabi oo reer miya. markaasuu su-aasha nebiga u jeediyey, yaa rasuul allah, dadka ninkee baa ugu caqli badan uguna sharaf badan buu ka yidhi. umaba dheeraane wuxuu yidhi, akharuhum lilmowti dikra wa ashadduhum isticdaadan lahu ulaa'ika hum alakyaas dahabuu bisharafi addunya wa karaamati alaakhira. dadka waxaa ugu caqli badan uguna sharaf badan kuwa inta badan geeridaya aakhira xasuusanaya, maalinba maalinta ka dambaysana saayida aakhira ziyaadsanaya. kuwaasaa cuqaala buu nebigu yidhi, sharaftii adduunyadii karaamadii aakhirana kuwaasaa la tegay buu yidhi. sharafta aakhiro iyo karaamadii aakhiro iyo karaamada adduunyada dadka ilaahay yaqaanaa la tegay. dadka meeshay ka yimaadeen iyo meeshay u socdaan u kala caddahay baa yaqaana. يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل. بنبي كويل أبو ذر، يا أبا ذر، يا أبا ذر بكيل الدون إذا جديد سو بدو يقول دار توي كل قية سعيدنا الزيادة سفر كودير يا هاي. حكود دجن ولا لك يا مسلم كو شو وقتي وحالك يا إلى هاي أجي هاي. حكو قناعة في الدين لما أقوله، قناعة في الدنيا بالله أقول يا طاعتي عبادتي يا دينتي انت هيستوليها حكو قنع. اما ادويدي يا كسبك يا ارزاقدا انت الهي كسيه كو قنع تاسا مستحب الله جدي. وابا در ازهد امتي واعبدها ابو النبي قولي وانك امديده ugu zaahidsan ugu cibaado badan. man arada an yandura ila Isa ibn Maryam falyandur ila Abi Dar buu nabigu yidhi. ninkii doonaya nabi Ciise inuu arko Aba Dar al-Ghifari ha arka buu yidhi. zuhdigiisa iyo sidoo adduunyada uga zaahiday. kaasaa nebigu dardaaranka soo mariyuu leeyahay, abaadar oo doonida jadiidso, iimaanka jadiidso, qalbigaaga adduunyada kala dagaalam, qalbigaaga cadamada lacagta maxabada lacagta kala dagaalam. baddu way ku liqi haddii kale, shahawaad iyo qaflad baa adduunyada lagu sheeriyo way ku liqi haddii kale. wa akthar izaada fa ina safara tawiil. sahaydana ziyaadso safarku uu dheer yahay buu ka yidhi Abu Dar, oo safarku uu dheer yahay. sayidina Abaa Hurayra radia allahu canhu ayaa sankaraadkii ooyey. markaasaa lagu yidhi Abaa Hurayra maxaa loo ooyeysaa? saaxibu rasuulillaahi baa tahee. wuxuu yidhi abkii liqilati zaadi wa bucda safarii. sahayda aan wata yarideeda iyo safarkay sugaya islahayn buu yidhi. hada Abu Dar. cumar radia allahu canhu waa ninkii nebigu yidhi, low kaana bacdii nabiyan lakaana cumar. haddii aniga nebi dabada iman lahaa cumar baa nebi noqon lahaa buu rasuulku yidhi. jannadaan galay buu nebigu yidhi habeenkii micraajka qasri jannada ku yaalla ayaan arkay, gabadh xawraa ayaa igaga soo baxday buu rasuulku yidhi. markaasaan ku yidhi liman hada alqasri, gurigan ayaa loo diyaariyey qasriga intan leeg. waxay tihi nin carab ka dhashaa loo diyaariyey. anigaaba carabe ma cid kalaa? haa nin qurayshaa loo diyaariyey, quraysh ka dhashay. anigaaba qurayshe ma cid kalaa? haa nin ummadda nebi maxamedaa loo diyaariyey. anigaaba muxamede ma cid kalaa? haa bay tiri cumar bnu khadaab baa qasrigan loo diyaariyey. hada cumar. walaakiin muxuu yidhi masaajidkii nebiga khudbaduu ka jeediyey wuxuu yidhi, low naadaa min asamaa kullukum daakhiluuna aljannata ilaa rajulan waaxidan lakhiftu an akuuna huwa. haddii samada laga dhawaaqo la yidhaha bini aadanka o dhan jannay galayaan, hal nin keliya naar ka galaaya, ninkaas inay ani tahan u malayn buu odhan jiray. qanaaca fi diin lama ogolo walaalkayga muslimkow. diinta intaad haysato ha ku qancin, adduunyada intaad haysato ku qanac, taasaa mustaxab ah. asxaabu rasuul sala allahu calayhi wasalam qarnigan
qurunta adduunyada soo martay qarniga u khayr manaa bay joogeen saasayna ilaahay uga cabsoonayeen adduunyadu lama weynayn aakhirada la weynayd asbaabtii iyo ashyaadu lama weynayn camalka saalix iyo iimaanka la weynaa makhluuqu lama weynayn ilaaha khaaliqa amarkiisa la weynaa man lam yarda biqadaa'i walam yasbir ilbalaa'i walam yashkur calaa nicmaa'i falyakhruj min bayni asamaa'i wa ardi falyaltamis rabban siwaa'i baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi man lam yarda biqadaa'i qadaha wixii aan ku xakuma addoonka raalli aanan ku ahayn nicmadaydana aan iigu shukriyaynin balaayada aanu keenana ku sabraynin samadii arlada anigaa samaystay ha iiga tago meel kale ha qabto rabbi kalena ha samaystay baa ilaahay yidhi ilaa ayna ha ku mashquulin shahawaadka arsaaqad hungurigu waxaad cunayso inuunan ku seejin daacadda ilaahay laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah ay can daacati illah qur-aanku waa dacwad dhammaystiran weeyaan waa dacwad taama ilaahay baa dacwadayna siinaya ubadkaan u shaqeeyaa ubadkaan u ordayaa iyo xoolahaagaad xisaabinaysa daacadda ilahay inay ku seejin النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها الدنيا هل كان جنة النار تبا لقد يرسنيا هل كان لقد يرسنيا هل كان جنة لقد يرسنيا نارتين هل كانوا لقد يرسنيا أعماشي جنة الجوجل هل كان لقد قاضنيا أعماشي نارت الجوجل هل كانوا لقد قاضنيا فهيلو من طاعة إلهي أفر عدو بقرآن إلهي نوش يجي أفر تعدو نيه الله والله تقلم نفتد وعدو ويان إن النفس لأمارة بالسوء الديد وعدو جن ويان فلا تغرنكم الحياة الدنيا شيطانك وعدو جن ويان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا هود وعدو جن ويان أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هادع النفط هذا شيطان كان هادع الديد هادع طاعة إلهي إنك سجن أدوية إلهي كوجع إلهينا أوصيا كوجع علينا أوصيا نبينا عليه الصلاة والسلام أيام مالين كسحدي حصير صلبوا كسحدي لقحدي بمركع فرعها كقبتي عمر بعد دولي مدول للميي وكوكا عين نبي عليه الصلاة والسلام يا عمر بوكيد محاكا وهنا وحول يا رسول الله وحيقوا هنا يقول أديق رسولك إلهي أيا لقحدي فرعها كقبنيسا مركز النبي كوير يا عمر ما دي قشي كسنتا يعني ما يكلا كامشي كسنيه وحي عنتملا adigoo rasuulka ilaahay oo makhluuqa ugu khayr badana inay dhagaxdu feedhaha ka qabato kisra iyo qaysarna sirridahaba ay ku seexdaan jawaabta dhageyso walaalkayga muslimka wuxuu yiri ya umar ama tarda an takuna lana al-akhirah wa lahum ad-dunya ya umar ma adra liku hayn inay raaxada adduunyada iyo ku 60 sano ay qaataan inaguna raaxada aakhira aan iska qaadano muslimku mu'minku la dooni maayo sida dadka kale inuu fikiro meel baad u socotaa tadambaha kula weynaato tan ka tag laguma leh tadambaha haday kula weynaato tan adduunyadu way macaanaan hadba qofka inta lacagtu u ziyaado raaxadu uma ziyaado ogow hadba qofka inta adduunyadu u ziyaado walwali wal baharka ku ziyaada hadba qofka inta iimaanka iyo diinta iyo qurbi min Allah uu dhawaadana raaxada ayaa u ziyaadaysa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah qofka amal wanaagsan la yimaada amal wanaagsan shanta waqti oo jamaca ku tukata ayaa kamid amalka wanaagsan min dhakarin aw untha labiya didig midku dooniba han noqdo ba ilaahay labiya didig midku dooniba han noqdo wa huwa mu'min xaalaw qofkaasi mu'min yahu iimaan leeyahay falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa kunnolayne nolol lagu noolaado ugu wanaagsan mufassiriintu waxay yiraahdeen nolosha wanaagsan waa saddex weeyaan qalbiga ku daga arsaaqada kugu filaata iyo dadka oo ku jeclaada saddexda wuxuu ilaahay ku ballan qaaday inuu ku bixin iimaan iyo amal saalix hadii dadka laga helo iimaan iyo amal saalix marka lagu leeyahay diinta ilaahay qabso awaamirta ilaahay adkayso maaha adduunyada ka nuqsaamayse bal adduunyadu way ku ziyaadaysaa raaxa ku ziyaadaysaa amniga ku ziyaadaya man kanat ad-dunya همه جعله الله الفقر بين عينيه وفرغ شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له نك همي سكدق أبو الرسول كده الدويدة قبو كفكرة
aakhiradii runta hayna daaqada ka saaray iska ilooba labada indhood inta u dhaxaysa faqriga loo saaraa arrimihiisana bari iyo galbeed baa rabbil ciza ku kala shaydhiya adduunyadana maba hela intii allah u qadaray mooyaane waman kaanat alaakhiratu hamahu ninka hamigiisa ka dhiga buu rasuulku yihi aakhiro jacalahu allahu ghinaahu fii qalbihi qalbiga ayaa hina iyo raaxa looga buuxiyaa wajamaca allahu shamlahu arrimihiisao dhanna ilaahay baa iskugu soo dhoweeya wa aatatu dunya wahiya raaqima adduunyadana waxay u timaadaa iyadoo sandullaysan oo hoos socotay timaadaa buu rasuulku yidhi ha ka sii jeesan daacadda ilaahay walaalkayga muslimkow diintan wuxuu ilaahay noo siiyey si adduunkan iyo aakhiro aan ugu liibaano manaaficu diin manfacada diintu aakhiro keliya kama bilaabantee adduunyadana diinta lagu dhargayaa adduunyadana diinta cizi lagu helayaa adduunkana diinta raaxa lagu helayaa adduunyadana diinta amni iyo nabadgelyo lagu helayaa yaa طaalib الrisqi fi اdunya biquwatihi dadka maanta intooda badan daacadda ilahay waxay ku dhaafaysaa waa hungurigaas ismac yaa طaalib الrisqi fi اdunya biquwatihi تدور فيها من بلد إلى بلد أتعبت نفسك ما لست تدركه وضاع عمك في همر وفي نكد لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا شربة ماء غير رزقك لم تجدي هداد هنقرق ملك استأمرته اسكدا أرلما انتو تشغى كويدو هداد السماء الشغى لقوقو الشغى أجدون تشغى كبشبيو كو قرين مسو قادس أقصر عناءك فإن الرزق منقسم يأتي إليك ولو في جبهة الأسد tacaabkaaga yaree ha isdaalin xoogaaga iyo caqligaaga iyo cimrigaaga adduunyada ha ku dayicine kala reebo oo aakhiradaadi ha seegin arsaaqadaadu hadday libaax foodiisa taallo ayadaa kuu imanaysee laa tacjalanna fa ina risqa laysa bilcajali ha degdegin arsaaqada xoog iyo qafqaf laguma hele risqu maktuuban bilawxi maca alajali arsaaqadaadi iyo cimrigaagu waxay ku qoran yihin loox maxfuudka ma dhimanaysid ilaa arsaaqadaadaad dhamaysatid maahayn لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا ولكنه خلق الإنسان من عجل هذا الصبر لهين رزق يسقى نسود دون لها لكن بني آدم كان أسكت دق دقي مر والبا وحول بدق دق بكدونيا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم القائل الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن لكل أم يتبعها ولدها أفر شيء قف كستو مسلم عيال لقربا إنه إيمانك سيل على الصدو inuu iimaanka jadiidiyo inuu iimaanka ziyaadsado iyo inuu iimaanka caalamka o dhan dadka ugu yeedho iimaanka diintaada ilaalso diintaada mar walba cusboonaysiiso diintaada baro diintan caalamka o dhan baa ilaahay ugu talagalee risaalada caalamka siday u gaari lahaydna adiga laga rabaa diinta ilaalso kuna qanac diinta ku qanac sayidina cumar radia allahu canhu ayaa nin yahuudiyo saaxiibi ay yihiin oo reer bani qurayduu madiine ku soo maray kalimaad diintii nebi muuse ka mida ayuu ka soo qoray wuxuu soo galay masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi binu thaabit iyo nebiga wada fadhiya buu u yimiday alaa acraduhaa calayka yaa rasuul allah buu yidhi yaa rasuul allah ma kuu bandhiga nin reer bani quraydoo saaxiiba nahay baan kalimaad tawraada ka soo qoree فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام مذهب النبي قاس بدلي بلو فرسو مذهب كي باس بدلي مذهب كي رسولك عبد الله بايد يا عمر ثكلتك أمك وإذا قبلنت نبي وجهي ميانا العرض كدري من عمر نحي ورغدي بوطوري وحول رضينا بالله ربا
إلهي ربي نمدي سرالي بان كنا قني وبالإسلام دينا دين الإسلام كان وان كو قنعني ورالي بان كنا هاي دقنا هان رالي بان قلنا عقيدة علمي عبادة با وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا نبي محمد رسالة دي سي نبي نمدي سنة وان كو قنعني بل رالي بان كنا فسر نبي قو فرحي من بركيبو فولي وحويري نبي عليه الصلاة والسلام اسمع يا أخي دقيسو دادان دوحبا هين والله اسكو اكيسيو دادكينو اسكو اكيسيان اسكدايه انظر هذا النبي وقال عليه الصلاة والسلام لو أصبح موسى فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم بولي هذه ما أنت النبي موسى وندح إيمان لها أنا وندح تاغن وهذه السجر راعي لهيدين واضح الله دين برسولكم بولي أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين نصيب أياديتهم بولو مده آكهلي نصيب أيان إني هاي بود النبي يدي أتكه هشام برسولك بودي هدي النبي موسى ما أنت وإيمان لها وشريعة دي سي التوراة لا إيمان لها وداني جاي تجي لهيدين ودي السجر راعي لهيدين واضح الله ودين برسولك بودي أنتم حظي من الأمم أمدي أمدها وجو خير بنيد أمد أبورتانك أمدها وجو دنبيسا جنة نقلتانك وجوه الرئيسا أمد الجنة أنت بندقيس ما دام وتهين نصيب أيان نقول هلي النبي يقول نصيب كي جاي كيسي ما دامون أنا قلنا هاي نبي النبي ده وجود بيجي إمامك أنبياء ما دامون هاي نصيب أياد يقول هشام برسولك ده عليه الصلاة والسلام الشريعة ده إذا الدين تدي من الله ده هي السنة ده إذا طريقة ده كوكن عبد رسولك ده عليه الصلاة والسلام وإحنا قب بدلن كرامة جرى طريقة دي سا أمدي سيبها إلى هاي نجدي أمدنا وأمدها أقول خير بدن أنا وحنبي يقول حرمت الجنة على الأنبياء حتى أدخلها جنة النبي ده قال ما ينوى لقى حرم إلا أنو أنك قال ما هنا وحرمت الجنة على الأمم حتى تدخل أمتي أمضونا الجنة قال ما يان إلا أمضي دو أي قشما هنا قبورها ينبي زيارة بقيع مركز أدعي وددت لو أني رأيت إخواني وحان جعل هذا يقولون جعل يسلها إنه ولا لها يأركي لها أصحابت وعيكور هذين أو لسنا إخوانك مئن أنك ولا لها هين لا أنتم أصحابي إنكو أصحاب تيباتهين ولا لها يواكو عني قد بدأ إيمان دونا الرومين دونا يكو عني يارك برسولكم دي سيادو قرن دونتا صحابة وحيد هذين دادكاس ما أبدا أركين أدوكو يكون كما يارك سيادو قرن دونتا قيامها halkay wajiga dhulka dhigayeen ee weysada marinayeen oo iftiimaysa ayay banka hawdka ugu iman doonaan buu rasuulku yiri 120 saf ayaa jannada galaysa buu nabigu yiri dadka ahlu jannuhu waa 120 saf 8 saf baa ummadayda buu rasuulku yiri atardawna an takunu ruba ahli aljanna qulna bala abdullah ibn mas'ud baa yiri nabiga maalina uu riyo wuxuu nagu yiri raalima kuntihiin ummadaha marka loo qaybiyo afar qaybood dadka jannada galaya أفر مرك الله قيبي قيبنا نقطان رالي مكوتين أصحابته وحيدا دين ها أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة أهل الجنة مرك الصدح الله قيبيو قيبنا نقطان مكوتين رالي بان حيدا دين مرك أصل النبي يري والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وحان رجينا يا وكل رجوين هاي كي أبو ريبا كل دارتي الجنة دينات كلب بد إني كنت جيسا ما كل رجوين هاي برسولكم إلهي أمدي سيبوين قد إلهي وين كرامي wuxuu nagu karaameeyay waa maxay ummadihii hore shay kaliya un baa laga rabay kaliya bas ilaahay inay ka yaabaan ay caabudaan ama ummadan laba shay baa laga rabaa laba shay ilaahay inaad ka yaabto waa laga rabaa ilaahay inaad caabudo waa laga rabaa aakhiradan inaad u shaqaysato waa laga rabaa khalqiga adduunyada kugu nool ee bashariyada inaad arinta ugu yeedhana waa laga rabaa مقر النبي وعدي ألا لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم مرب النبي عمري سحجي مركلية مركينا وحيري أنا النبي قدم بي مجرو وماذا قدم بي سانا مجرتي ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة كينا ما أنت لجوغي مغليو كينا ما قارسيب رسولك عليه الصلاة والسلام بلغوا عني أدوا عني رحمكم الله الله ينين حريسي أما أنا ذا قادوا عالم كي قارسية اللهم استر من نصر دين محمد إله ونكي الدين تيدا أقرقار برسولك نظر الله امرأ سمع مقالتي مالك وجيدو أي مدوباني بنك قيامة وجيكي سألها نوريو نك هل آيات أما هل حديث يقام مغلي سدو يقام مغلي ومدو قارسيه ورسولك عليه الصلاة والسلام ومدن ومد الأحي دورتي شرفتا يا كرامدا ومد الوحي كويا لتي وشقد نبينا عليه الصلاة والسلام shaqadaas markay caalamka shaqada laga tagayna dhibaatada maanta islaamka ku dhacday gaar ahaan dalkeena ku dhacday wax kala ma aha waa tarku dacwa dacwada markii laga tagay dhibaata timiday
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم مركز حولها حول dhaqatay isku حول dhaqata aad u jeesataan iyo beeraha qodataan tijaarada aad u kacdaan shaqadii diinta iyo dadaalkii halkii diinta aad ka tagtaan ilaahay dulli buu nuhuwinaya dulli niga saari maayo dulliga niga siibi maayo ilaa diintiina aad u noqotaan maahine ilaa diinikum bal ilaa diinikum diintu waxay baaqi ku noqonaysaa salaada maaha soonka maaha xajka maaha diintu waxay baaqi ku noqonaysaa fi kulli zaman wa in la helo juhdu da'wa marali markay diintu hoos u dhacdaba ilaahay wuxuu soo saaraa culamaa rabbaaniyiina mar labaad soo cusboonaysiisa tawxiidka iyo iimaanka iyo akhlaaqda islaamka u lahaa ninka muadinka markuu eedaamaya buu rasuulku yidhi shaydaanku qofka uu ka baxaa 16 mayl buu sii socdaa isagoo xagga dambe naqas ka sii daynaya markuu muadinku aadaanka dhameeyana uu soo laamaa qofka ayuu soo galaa iqaamada marka lagu dhiftana shaydaanku uu baxsadaa markay iqaamadu dhamaatana qofku soo galaa salaadiisii iyo qofkii buu kala dhexmaraa wixii uu iloobay buu xasuusiyaa ilaa qofku ka garan waayo wuxuu tukadayba salaadu waa farad eedaanku waa sunne shaydaanku muxuu salaada uga baxsan lahayahay oo sunnaha uga baxsanaya laana aadaanku waa dacwad salaaduna waa cibaado weeyaan ifham almas'ala walaalkayga muslimka u faham takaliyad ku badbaadayso ee ku nabadgalaysa adiga iyo mujtamacaaguba waa dacwad weeyaan umar mamara buu nabigu yiri tog shaydaanna toga kalu ka sii wacdaa lianna umar saaxibul haq buha saaxibul haq shaydaanku kama cabsoonaya cibaadada iyo salaada shaydaanku waxa uu ka cabsoonaya waa aadaanka allahumma rabb hadhihi da'wati tamma lana aadaanku waa dacwad dhamaystiran weeyaan sida darteed haddaan doonayna inaan badbaadno falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'ani suu dacwada maxaa kale lagu helayaa fasaadka dhacaya uqubada imanaysa ninka daaciga ee diinta ka shaqeeya way u badbaadaya imaam bukhari kitaabkiisa wuxuu ku soo saaray nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa yiri qariyad baa ilaahay u soo diray malag soo halaag baa laga yiri qariyada soo halaag malagii markuu yimiday wuxuu arkay nin saalix oo caabida oo ilaahay si fiican ilaaqa u leh markaasuu yaa rabbi yiri qariyadan aad igu tiri soo halaag adoon saalix oo caabida ku jiray waa sidii ilaahay wuxuu yiri fabda bihi cadaabka xaqiisa ka bilaab lam yata'ammar wajhu sa'atan fiya dadka aniga yaasinaya geyrkii caabudaya ee macsiyada dhexda baalanaya hal mar kaliya wajigiisu kama doorsoomin kama murugoone uqubadii cadaabka xaqiisa ka bilaab balay ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله محمد وأزواجه وأصحابه وأهل بيته الطاهرين الطيبين وعلى التابعين وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مضرودا ولا محروما اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك أمرتنا فتركنا نهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين يا عزيز في ملكه ويا حكيم في صنعه ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله
نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن لكل أم يتبعها ولدها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق التمرة ومن لم يجد فبكلمة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلهي تبارك وتعالى ومنعم isagaa inoo nicmeeyey nicmadaha ilaahay nagu galladaystayna lama tirin karaayo lamana soo koobi karaayo hase ahaatee nicmadaha ilaahay uu bini aadanka siiyo laba nicmadood bay u kala baxaan nicmad yar iyo nicmad weyn nicmadda yar bini aadanka oo dhan bay maaragtaan ee ka dhaxaysaa nicmadda weynina dad gaara ayaa khaas u tahay nicmadda yar muslimkuna uu haysan karaa kaan muslimka ahayna uu haysan karaa waxaa ka mid a awalan ilaahay wuxuu ina siiyey nicmatul iijaad ilaahay isagaa ina jirsiiyey maan joogi jirin adduunyadan ilaahay isagaa ina jirsiiyey hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura zaman ayaa waqti ayaa caalamkan soo maray oo bini aadankan wax la sheegaba uusan ahayn mid kastoo halkaa fadhiya haddii da-diisa la weydiiya uu sheegi 30 jir 40 jir
konton jir haluma jar intaa doontaba sheego intaa ka hor halkeed joogaysay lasta bishay horay waxba umaad ahaanayn imikana waxba ma tihid ee ilaahay unbaa ku jirsiiyey iraadadiisa iyo amarka ilaahayna waad ku socotaa ilaahay bayna keenay adduunyadan oo ina jirsiiyey wuxuuna inaga dhigay makhluuqaadkiisa ka ugu karaamo badan buu inaga dhigay innii jaacilun fi lardi khaliifa markuu ilaahay nebi aadan calayhi salaam uu abuurayey malaa'igtii buu u bishaareeyo ku yidhi waxaan samaynayaa khaliifkaygii baan samaysanayaa khaliif maxay khaliif maxay ka dhigan tahay arlada ku awaamirtayda ku fuliya arlada ku aniga wakiiliga noqda oo mashayga iyo waxaan doonaya yeela oo aniga garto aniga adeeca oo awaamirtayda arlada ku camira ayaan abuurayaa baa ilaahay yidhi malaa'igtu waxay yidhahdeen ma waxaad ka yeelaysaa ku arlada ku dul fasaada oo dhiigga daadiya haddaad tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo cibaado doonaysana annakaa ku caabudayno nuuraaniyiinoo ku caasinayne ilaahay wuxuu ku jawaabuu yidhi innii aclamu maa laa taclamuun waxaan ogahay waxaanad idinku ogeyn ayaan ogahay baa ilaahay yidhi marka bashar buu ilaahay naga dhigay walaqad karamnaa bani aadama baa ilaahay yidhi bani aadanka waan karaamaynay wa xamalnaahum fi lbari waalbaxri bariga iyo baddaba waan xambaarsiinay warasaqnaahum min aldayibaat arsaaqada ta ugu wanaagsanna waan ku arsaaqnay wafadalnaahum calaa kaiirin miman khalaqnaa tafdiila khalqi fara badan oo sameeyena insaankan aan ka karaameeyey baa ilaahay yidhi marka nicmatu linsaaniya waa nicmad weeyaan laakiin nicmadda muslimiinta keliya gaar uma bal ka kale aan muslimka ahaynba nicmadda uu la wadaagaa waa bashar ka majuusiga cadaada caabudaya iyo ka dabka caabudaya iyo ka wuxuu samaystay caabudaya iyo kaa muslimka ilaahay caabudayaba nicmaddaas waa ay u dhaxaysaayo dadkao dhan waa bani aadam weeyaan nicmadda yar waxaa kaloo ka mid a baa la yidhi arsaaqaddu waa nicmad weeyaan arsaaqadan ilaahay muslimiinta gaar uma siiye bal kuwa kalena arsaaqadda uu siiyaa cabdii laka calaya risqaka waliya calayka fariidatun in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika addoonkaygiyo baa ilaahay yidhi adigana waajibaad iyo awaamir iyo axkaam baan ku saaray aniguna arsaaqadaadii baan ballan qaaday inaan ku siinaayo haddiid faraa'id iyo waajibaadkii aan ku saaray aad ka tegtana anu arsaaqada kaa goosan maayo baa ilaahay yidhi arsaaqadu waa nicmad weeyaan laakiin waa nicmad caama dadkao dhan bay ka dhexaysaa nebi ibraahim calayhi salaam martiqaadkuu aada u jeclaa keligii cunto ma cunayn ilaa marti uu la raadsada maahine nin martiya ayaa u yimiday markaasuu neef u qalay cuntadiibuu u dhigay markuu ninkii cuntadii u fadhiistay ayaa ninkii halkaa wuxuu ku sitaa sanab uu isagu samaystay khashab uu caabudayu halkaa ku sitaa marka khashabkii baa ka soo dhacay ibraahim calayhi salaam uu ka cadhooday wuxuu yidhi soco buu yidhi kuma siinaya cuntadayde liannaka hayrullahi baad caabuddaa uu ka socday ninkii jibriil baa u yimid calayhi salaam yaa ibraahim ilaahay uu kusoo salaamaya wuxuuna kaa yidhi addoonkaa maxaad u eridood cuntada u siin weyday markaasuu yidhi yaa rabbi ibraahim calayhi salaam waxaa lagu yaqaanay daa'iman caqiidada iyo tawxiidkiisu cajiib u ahaa uffin lakum walimaa tacbuduuna buu yidhi ininkii waxaad caabudaysaanba uf baan niri buu yidhi wuxuu yidhi ninkaasi ilaahay keyrkii buu caabudaya hoosta ku haystay yaa jibriil ilaahay baa yaa jibriil ku dhe khaliilkayga ma maalin keliyuu ku yimidaad cunto siini weydee 70 sanuu sanabkaa uu samaystay caabudaa on weliba ku arsaaqaa baa ilaahay yidhi rasaaq waa ilaahay arsaaqadu waa nicmad weeyaan nicmadaasi gaal iyo islaamba waa u siman tahay bashar caqligu waa nicmad weeyaan caqliga dadka kaleba way kula wadaagaan maqalku waa nicmad weeyaan nicmadda maqalka dadkao dhan baa kula wadaaga araggu waa nicmad weeyaan akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a wajacala lakum alsamca walabsaara walafida lacalakum tashkuruun qaliilan maa tashkuruun hooyooyinkiin ayuu naga soo saaray uurkooga ilaahay ininkoo waxba garanayn markaasuu maqal inii yeelay arag buu ini siiyey qalbi buu ina siiyey bashar buu inaga dhigay nicmadaasina waa nicmad cumuumiya nicmadaas dadkao dhan bay ka dhaxaysaa mancim waa ilaahay wamaa asbaxa minkum min nicmatin fa min allah wamaa bikum min nicmatin fa min allah waxalli waxaa nicmadaad haysataan ee gabalku iniila dhacayo waaguna iniigu baryaayo ilaahay baa ini siiyey koonka ilaahay baa inii sakhiray cadceedda ilaahay baa soo saaraya amarka ilaahay baa ku soo baxaysa amarka ilahay baa ku dhacaysaa dhulka aad ku socotay ilahay baa kuu ballaadhiyey waasamaaa banaynaaha biaydin wa innaa la muusicuun waalarda farashnaaha fa nicma almaahiduun
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله سمد إلهي با سميي وإلهي قعنتيسو سمد كو سميي قعنتيس دولك إلهي با فرشي أو بلاديي شيء كستنا لبا أيان كدقني با إلهي دسادو أن تودان دراري يا حبين ضيح يا عدعاد كليل يا قبو أبار يا برواقو نبت قليا يا عبسي نلول يا جيري حنون يا عافمات لبي يا ديدك فقير يا غني حنون يا عافمات فقر يا غنى عزة يا ذلاء شيء والبلبا أيان كدقني با إلهي دسادو أن تودان ففروا إلى الله حق إبهن ويا حق مخلوقه ويا عنا غير الله كياع أو إلهي حقي سأياع من خاف شيئا هرب منه ومن خاف الله هرب إليه نك شيء كعب صدا شيء وكبح صدا وكأرضا نك إلهي كعب صدا إلهي حقي سوء أرضا هدي اللي بقى حد أتكعب صدا وأتكبح حسن هدي إلهي أتكعب صدا حقه بحسن حقي سوء بحسن مالك الله بحسن يا مجرته مالك الله يسكب ديب يا مجرته حقي سيسكب ديب تصغير إلهي إنسان كان يساقا كونك أسخري سخر لكم ما في الأرض جميعا برقي بكو سخري بوريه بكو سخري بدي بكو سخري هودي بكو سخري كائنات كردن باديك كو سخري حواليه بكو سخري وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين بإلهي وإن لكم في الأنعام نعموا ليدات هيستان عبرة إن يقصوا بإلهي نسقيكم وأنقى ورابنا مما في بطونه شيء علوش إذا يكون هيستو عنها سون كسو دح صارنا بإلهي ديجي أوسن تود حيسا كسو صارنا بإلهي عنا عب تصغير حوله بالغو صخري عدعدي بالغو صخري هبينك بالغو صخري درارتا بالغو صخري biyaha lagu sakhiray hawada lagu sakhiray arsaaqadii baa lagu sakhiray malaa'ig baa ka shaqaynaysa arsaaqadaada oon wax kalaba ka shaqaynin afarta malag ee quraanku sheegay jibriil calayhi salaam iyo israafiil calayhi salaam iyo mikaa'il calayhi salaam iyo malakul mawt afartaasiba bini aadanka unba u khidmaynayaan labana ruuxday ku shaqo leeyihiin labana jasadkay ku shaqo leeyihiin laba jasadkay ku shaqo leeyihiin jibriil calayhi salaam wuxuu keenay waxyigii ruuxda bini aadamku ay ku noolaanaysay mikaa'il calayhi salaam arsaaqadii roobku ku shaqo leeyahay israafiil calayhi salaam wuxuu ku shaqo leeyahay insaankan in ruuxdu in insaanka jasadkiisa qiyaamaha dib loo soo noolay haddana malakul mawtna wuxuu ku shaqo leeyahay qabd al arwaax inuu bini aadamka ruuxda ka qabto الإنسان كسد إلهي أكرم يوفرسو خلقنا إلهي سجينا أبو ري سجينا جرسيي سجى إلهي نو نعمي يا أيها الإنسان وداعي ولب إلهي وكويا ريا كما هدين ولبنا إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سوائي با إلهي أنيجي أدون كيجا وربنا دحمر با إلهي وروين بنا قد حدعي أخلق أنيجا أبو ري با إلهي ويعبد غيري غير كينا وعابديا احنا أبو ري غير كينا وعابديا غير كينا ورجينيا غير كينا وتلصارنيا غير كينا وسكوها لينيا غير كينا واعتماديا أرزق ويشكر سوائي أنيجا يا أرزاق با إلهي غير كينا وأكون مهدنيا أرزاق دايا بحيا الله با بحيا خيري إلى عبادي النازل وشرهم إلي ساعد با إلهي خير كيجي مالي والبوس ودق يا ضومهايغا شركوغين عنو يصوفوا ليا با إلهي مالي والبوات أسكون كودن لغو سخري هودي بيهي دبيشي عدعادي درارتي هبينكي أرزاقدي بيهي والغو سخري أعماش بني آدم ككسوفوا ليس إلهي حقي صلو قادينا وأعمال إلهي كعري سينيسا انت هذا إلهي عاسنيسا انت هذا إلهي عضيعيسا يما بدن بلدوش حسابي خيري إلى عبادي نازل وشرهم إلي صاعد خير كيجي ودقيا مالي والبا شركوغن عنو يصوفوا لا با إلهي تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس بالنبي قولي مالين كستو اثنين يا مالين كستو خميسة أعماش أضومها جركوغا كستو بحدا أيا إله الله بندقاب رسولك بيدي ها markay adoomadu ay ilaahay caasiyaan ilaahay jalla wa ala wa aroonaya atahabbabu ilayhim bi ni'ami wa ana al-ghaniy anhum wa anu ni'mayna ba ilaahay walibana wasjaclaysiinaya anigoo u baahneen walibana ka kaaftoon ba ilaahay leeyahay wa anu ni'maynayna
dhinacii walba hareerahan nicmadii ka dhignay buu ilaahay yidhi umana baahnin haddana bini aadanka anigoo u baahnayn oo waxbana ay ii qabanayn oo cibaadadoodu meel ii buuxinayn oo waxay ii qabanayaan aysan jirin hadday ii wada caabudaan waxbay ma ziyaadinayaan hadday wada caasiyaan waxbay igama naaqusayaan yaa cibaadii low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum maa zaada dalika fii mulki shay-an baa ilahay yidhi xadiis alqudsi addoommahaygiiyow kiinii hore kiina dambe jin iyo insigiin haddaad noqotaan sida kiinayniigu alla kayaa badan waxba aniga ima ziyaadinaysaan baa ilahay leeyahay culamada qaar waxay ku fasiraan waa nabi maxamed sal alla alay wasalam sida nebi maxamed ilaahay uu uga yaabay haddaad iga wada yaabtaan baa ilahay leeyahay waxba aniga ima ziyaadinaysaan low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum maa naqasa dalika min mulki shay-a haddii sida ibliis ii caasiyey ibliis baa khalqiga ugu qalbi adage ibliis siduu amarkayga u diiduu u jabiyey isagoo quwaddayda garanaya haddaad amarkayga u wada diidaan ood caasadaan waxba ima ziyaadinaysaan baa ilaahay yidhi ataxababu ilayhim binicamii wa ana alghaniyu canhum waan u nicmaynayaa baa ilahay yidhi say ii jeclaadaan bas anigoo haddana ka kaaftoomo u baahnayn bini aadanka wayatabaqaduuna ilaya bilmacaasi wa hum axwaju shayun ilaya macsiyad bay isku kay nacsiinayaan iyakoo wax walba aniga iga baahi badan baahida aniga ii qabaan iyo baahida biyaha baahida raxmadayda u qabaan baa ka weyn baahida arsaaqada u qabaan iyo yani baahida raxmadayda u qabaan baahida raxmadaydaa ka weyn iyakoo wax walba iga baahi badan ayay haddana macsiyaddii isku kay nacsiinayaan baa ilahay yidhi man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin ninka ii soo jeestay ii toobadkeena ee dembiga intuu galo ka soo noqday ii soo noqday baa ilaahay yidhi meel dheer baan uga dhawaaqa waxaan idhaahdaa kuwii toobadkeena ii soo dhowaada ina allaha yabsudu yadahu billayl liyatuuba musii'u nahaar wa yabsudu yadahu binnahaar liyatuuba musii'u leyl ilaahay gacmihiisuu fidiyaa habeenkii si kuwa maalinkii dembiga ku jira uga toobad aqbalo maalinkiina ilaahay gacmihiisuu fidiyaa si kuwa habeenkii gafka ku jira ilahay uga toobad aqbalo man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin kuwa ii toobadkeena ii soo noqda meel dheer baan uga dhawaaqa waxaan idhaahdaa kuwii toobadkeena ii soo laama ii soo noqda faman adbara canii minhum caasiyan naadaytuhu min qariibin ayna tadhabu alaka rabbun hayrii kooga iyaka ka mida ee xagga macsiyadda ku talax taga ee kayrkay caabuda ee shahawaadkiisa iyo hawadiisa raaca meel yaroo dhow baan uga soo baxnaayo waxaan ku nidhahnaa ayna tadhabu halkee tegaysaa ma rabbi anigaan ahayn baad leedahay ina badsha rabbika la shadiid ina rabbaka la bilmirsaad ma dheero kama dheero qariibun mujiib jabaabirada iyo fasaqada iyo dalamada iyo kafarada ilaahay uu ka argoostaa uu argoosanayaa maalinka qiyaamaha markay dadku soo baxaan buu rasuulku yidhi xagga dhawaaq baa ka imanaya xagga ilaahay markaasaa la odhanayaa ilaahay wuxuu odhanayaa cibaadii addoommahaygiyow min maalinkaan ini abuuray ilaad adduunyada ka imanayseen waxaad ku hadlaysaan oo dhanna waan maqlaayey waxaad samaynaysaan oo dhanna waan u jeeday waa nii aamusnaa maanta waa maalintaydii aamusa waan argoosanayaa baa ilahay odhanayaa ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii markaasuu ilaahay odhanayaa meye kuwii arsaaqadayda cunaya heyrkayna caabudayey kuwii doolarka caabudaya doolarka salaadu ku dhaafaysa mee ilaa cibaadadu sanab keliya ma ahine may haddaad qabiilkaaga aad islaamnimada iyo qabiilkaaga agtaada ku weynaado cabdulqabiil baa tahay cabdullahi ma tihid tacisa cabdu dinaari wadirham buu nabigu yidhi addoonka dinaarka iyo dirhamka caabudayaa khasaaro hoogay buu rasuulku yidhi shahawaadkaaga haddaad caabuddo cabdu shahawaad baa tahay ka qabiilkiisa u ficiltamaya islaamnimadii daaqadda ka saaray ee qabiil ku bedishay kaasina waa cabdulqabiila weeyaan man badaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu buu rasuulku yidhi ninka camalkiisu dib u dhiga maalinka qiyaamaha nasabku ka dhashay hore u dhigi maayaan buu rasuulku yidhi ha u ficiltami reetolka waxba kuu tari maayaan ifkanay wax kuu tarayn aakhira waxba kuu tarayaan ifkanay naafici weyda qabyaaladii oo ummadeenni iyo dalkeennii baabiise ma aakhiray wax kuu tari markaas xamiyadda iyo jaahilinimadaan iska saarno man bada'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu ninka camalkiisu dib u dhiguu la hadho
nasabkiisa hore u dhigi maayaan buu rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam. nabiga nin baa u yimid oo yidhi ninka xamiyad u dagaalamaya iyo ninka u dagaalamaya buu yidhi shujaacad raganimo iyo geesinimo iyo ninka qabyaalad u dagaalamaya iyo maa fii sabiili illaahi ah. jawaamicu lxikam baa la siiyey rasuulka, xikmad buu ku jawaabo wuxuu yidhi ninka u dagaalama iclaa kalimatillah kaun baa la dartiya buu rasuulku yidhi, kuwa kale waa dabayl waa dambas ay dabayl qaaday weeyaan waxoogu ma jiraan bay ka dhigan tahay. marka ilaahay ninka u baahan ayna aladiina cabaduu hayrii ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii buu ilahay odhanaya. aawee kuwii arsaaqadayda cunayay khayrkiina caabudayay, aynahum arsaaqada ilaahay buu cunaayey, nicmadda ilaahay buu dhex dabaalanayey, ilaahayna adduunyada uu ku caasinayay, bal reetolkii dartiid buu amarka ilaahay u jabinayay. aawey buu ilahay odhanaya waan argoosanaya maanta anigune. marka qofku hadduu macsiyada ku talax tago ma baxsanayo walaalayaal, ma baxsanayo. adduunyada intuu nool yaha waa loo siita dheerayn, laakiin ma dheeraanayo arrintiisu looma dheeraanayo. laa mucaqiba lixukmih alaysa allahu bicasiizin dintiqaam alaysa allahu biaxkami alxaakimiin alaysa allahu biaclama bima fi suduuri alcaalamiin. waa argoosan ilaahay. marka cibaadadu maaha sanab keliya loo sujuudo maaha, waxa li wixii amarka ilaahay ku garamariyo dhan waad caabuday ka dhigan tahay. waxa li wixii ilaahay daacadiisa ku halmaamiya waad caabuday. haddaad hawadaada raacdo hawadaada waad caabuday. afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa. ilaah macnaheegu waa maxay luqada carabiga? ilaah waxaa la yidhi waa shayga markay dhibaata kugu timaado qulubtaada u ilato xaggiisa, hada hu yusama lilah. man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin faman adbara canii minhum caasiyan naadaytuhu min qariibin ayna tadhabu alaka rabbun hayrii. halkee tegi buu odhanayaa, meel kaleo tegaysa ma jirte. ilaahay waa muncim, isagaa inoo nicmeeyey, bashar buu inaga dhigay, caqli buu ina siiyey, cilmi buu ina siiyey, kownkan iyo kaa'inaadku inoo sakhiray, hadafku adduunyada inoo keenay in ilahay uu noo caddeeyey. nicmadda weyn ee gaarka ee dadka gaarka la siiyey waa nicmat liimaani walislaam. iimaanka islaamnimadu waa nicmad weyn, nicmadaasaa ilaahay muslimiinta ku deeqay. nicmadaha kale ee ka soo hadaloo dhan waa nicmad wakti yar ku xadidan weeyaan, laakiin nicmat liimaani walislaam ma xadidno. bal qofka adduunyada intuu nool yahay ilaahay amarkiisa qaata ee noloshiisa diin dhammaystiran laga helo, ee diintu kashkiisa iyo laabtiisa ay ka muuqato, ee iimaanka islaamnimada noloshiisa laga helo, adduunyadana raaxa iyo ciz iyo sharaf, aakhirana waxaa u dambaysa noloshii daa'imkii abadiga ahayd. adduunyaduna xaqiiqa mahaba. wawasaa biha ibraahimu baniihi wayacquub ya baniya ina allaha astafaa lakum addiina falaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun. wasiyat lawaliina walaaakhiriin waa maxay? falaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun. nebi ibraahim calayhi salaam wiilashiisa wuxuu ku yidhi, ubadkaygiyow ilaahay diintaasu inii doortee yayna ajashiyo geeridu nii iman ilaa ininkoo diinta ay xadhiggaa haysta maahine. hadday nii timaado ajashu ininkoo xadhiggaa haystana waad liibaanteen, hadday ajashu inii timaado ininkoo xadhiggaa haysanna khasaara waxaad ku dhacdeen weligii aan laga soo kamayn. khasaarada adduunyada waa laga kamaa, laakiin khasaarada aakhira lagama kamo. dal bay dhibaata ka dhacday waa laga soo baxay, dadka badankooga way ka baxeen. quruumo kaloo reer baadiyaha dalkiiba iska qabsaday. dadkii wax yaqaaneen mutacalimiintiin waa ka soo baxeen. meeshanna waa ka la iskaga yar cascasiya baawure la iska wada wato, laakiin dhibaatada aakhira halkee looga qaxayaa ma jirto. ma jirto meel loo soconayo. haddii la yidhaha hebel qiyaamaha uu khasaaray, khasaaro wuxuu ku dhacay uu weligii ka soo kacayn. qur-aankuna aad buu uga warramay maalinka qiyaamaha, yowma laa tamliku nafsun
linafsin shay-an walamru yowmaidin lilah yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuh yowma yafiru almaru min akhiihi wa ummihi wa abiih yowmaidin yawaddu aladiina kafaruu yubasaruunahum yawaddu almujrimu low yaftadii yowmaidin bibaniih fakayfa tattaquuna in kafartum yowma yajcalu lwildaana shiba ilahay baa leh fakayfa laa tattaquun miyaanad cabsanayn baa ilahay leeyay seenad u cabsanayn haddaad khaaliqiina inkirtaan oo nicmadduuna siiye aad inkirtaan ood hawadiina iyo shahawaadkiina aad raacdaan miyaanad ka cabsanayn ugu yaraan maalin ilmaha yar markuu banka qiyaama la joojiyo timihiisa isla markiiba caddaana isku bedeli doonaan yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh waa maalin wejiyada qaarna ay iftiimayaan baa ilaahay yidhi qaarna wejiyadu ay madoobaanayaan yowma yafiru almaru min akhiihi waa maalinta qofku hooyadii walaalkii ubadkii xaaskii ay kala baxsan doonaan maanta waa laysku yaacayaa adduunyada waa laysku yaacayaa hadday dhibaata timaado dadku dhibaatada maanta waa iska kaalmaysanayaan nin walba kii halka jooga dadkiisii waxbuu u dirayaa laakiin qiyaamaha cidna cid wax u diri mayso hooyadaadii macaanayd ee ku dhashay haddii la yidhaahdo miisaanka ayaa lagu hayaayo hal xasana ayaa ka dhiman ee sii hadday xasanaysa jannay galaysaa qof kasti wuxuu leeyahay maalintaa may ilaa naftayda jannahan ku hubsanaya cid maaqaano buu leeyahay yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a walamru yowmaidin lilah yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim bale yowma laa yajzi waalidun can waladihi waa maalinta waalidku ilmihiisa wax u qaban karayn cunuguna aabihi waxba u qaban karayn qur-aanku maalinta aad buu uga warramay laakiin ayaa maanta kuwaan toobaya iyaase waru hayaba warkana ayuuba saameeyeyba maanta ayuu saameeyey xasan albasri ayaa raabica ayuu ku yidhi maad guursatida waxay tidhi imaam xasanow waxay tidhi afar aayadood oo qur-aanka afar mas'aladood oo qur-aanka ku taalla ayaa walwalkii ayaa raaxadii iyo hamigii iga qaada bay tidhi waxay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay in maalinka qiyaamaha dadku ay laba u kala baxa inay dadku laba u kala qaybsamayaan qolana kitaabka midigtay ka qaadan qolana bidixday ka qaadan labadan qoloqoladan ku jiraa iyo caddayn bay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay miisaanka in acmaasha la saaraayo qofka khayrkiisa cuslaadana janno inuu ku waariyaayo qofka sharkiisa cuslaadana naarta inuu ku hoyanaayo labadaa midaan ku jiraa i kala caddayn bay tidhi jidka siraad in la marayo qur-aanku ii sheegay dadna ay ku hoobanayaan jahannama dadna naarta u gudbayaan labadaa qoladaa ka mid ahaa iyo caddayn bay tidhi fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir baa la yidhe fariiqaan ku jira ayaa i caddayn bay tidhi waa raabica humuum qofka meele u caddahay meeli ka madow dadka zamankan adduunyadana la weyn dadkii qalbigooga iftiinku galayna aakhirada la weynaatay aakhiradii markay weyneeyeenna noloshii adduunyada waa u dhib yaraatay raaxadii adduunyada oo ifka u soo baxday maxay tahay adduunyadu cish maa shi'ta fa inaka mayit jibriil baa u yimid ee nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi intaad doontaba noolow kii dhinta un baatee qorshaa ku darso wacmal maa shi'ta fa inaka majziyun bihi camalkaad doontana la imo waa laga abaalmarin doonaa qiyaamahiisa ogow waxbin man shi'ta fa inaka mufaariquhu ciddaad doontana jeclow adigay ciddaad isjeceshahayna mawdkani kala geyn doone caalamkan aan ku nool nahay marka loo eego cawaalimta ka dambaysa caalamkan adduunyadu wuxuu noqonayaa dhibic marka loo eego cawaalimta dambaysa caalamu dunya waa 60 sano 70 sano caalamulbarzakh ayaa ka badan caalamka adduunyada dadkii zamankii nebi aadan dhintay ilaa joogadeenna caalamkaasay ku jiraan qolana way ku cadaaban tahay qolana way ku raaxaysanaysaa waa loogu janneeyey alqabru ima rawdatu min riyaadi aljanna wa ima xufratu min xufari naar buu nebigu yidhi qabrigu laba mid buu noqonayaa ama beerbeeraha jannada ka miduu qofka u noqonayaa ama godgodadka naarta ka miduu u noqonayaa sayidina cusmaan radia allahu canhu mar alle markuu qubuuraha yimaada lilmadaa ka daadanaysay waxaa la yidhi cusmaanow janniya naar marka laga sheekay ma oydide qabriga maxaad la oydaa markaad aragto wuxuu yidhi qabrigu waxaan ka maqlay nebiga oo leh calayhi salaatu wasalaam qabrigu waa guriga guryaha aakhiro ugu horeeya hadduu qofku halkaa ku nabadgalo nabadgelyo ayaa u dambaysa hadduu halkaa ku cadaabo ku khasaarana khasaarihii weynaabuu u gudbayaa buu yidhi
zuraarata ibn abi awfa masaajid buu ka ahaa imaam taabici buu ahaa salaadii subax buu jamcii tujiyey rakcaddii hore markuu suuraddii faatixada u dhameeyey suurat lmudathir buu ku xijisiiyey markuu marayo faidaa nuqira fi naaquur fadalika yowmaydin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir maalinta suurta aan ku dhifanna baa ilaahay waa maalin culus weeyaan maalintaa dadka gaaladaana uma fududo baa ilaahay yidhi aayaddaa markuu marayay ninka imaamkii taabiciga jaliilka uu dhacay oo nafti baa ka baxday sayidina cumar masaajidkii nebigu soo galay habeen inan yaroo shaab buu arkay oo salaatuleyl tukanaya oo soodka kor u qaadaya markaasuu cumar istaago uu dhegaystay yarkii yaraa markuu faatixadii dhameeyey wuxuu ku xijisiiyey watuur wa kitaabin mastuur fii raqin uu dhegaystay cumar markuu maraya yarkii yaraa ina cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic halkaa markuu maray cumar uu suuxo uu dhacay gurigiisii baa la geeyey 30 maalmood buu xanuunsanaa xanuunkiisana wuxuu ku yimid lama ogeyn sayidina cabdiraxmaan bin cawf ayaa loo keenay cunto isagoo sooman markaasuu qur-aankiibuu kala furay waa qabla alfutuur weeyaan qur-aankiibuu kala furay markaasuu akhriyey ina ladayna ankaalan wa jaxiiman wa طacaaman daa gusatin wa cadaaban aliima طacaamka ahlu naarka aayaddu ka warramaysaa aayaddaa markuu taabtay sayidina cabdiraxmaan uu ooyey ilaa maalintaa uu afuri kari waayey sidiibuu ku seexda habeenkii gaajo nebiga calayhi salaatu wasalaam xalaqaadkiisii ka mida ayuu nebigu sal alla alay slam ku akhriyay aayaddaas waxyigiibaa ku soo degay isla markiiba asxaabtu waxyiga u gudbiyey yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara kuwii ilaahay nebiga rumeeyow duulkii ilaahay nebiga rumeeyow lafihiinni iyo ehelkiina naarta kala baxsada baa ilaahay yidhi ee gaajo kala baxsada lama odhan gaajaa laga soo yaacay dhibaato keliya laga soo yaacay 10 dhibaataa maanta faraha lala galoo la laami kari layahay quu anfusakum waahliikum naara mufasiriintu waxay ku fasireen lafihiinana diinta barta ubadkiina iyo ehelkiinana diinta bara baa ilaahay yidhi waxaa yeele diintaa lagaga badbaadayaa naarta aayaddaa markay soo degtay waquuduha annaasu walxijaara markuu nebigu aayaddaa ku akhriyey nin xabashiya nebiga hor fadhiyey majliskiisa lilma ayuu sii daadiyey uu ooyey oohintiisiibuu ishaysan kari waayey ilaa jibriil ka soo degay calayhi salaam yaa muxamed kan hoostaada ku weeye waayo markaasuu yidhi yaa jibriil waa addoon reer xabashaa oo ahlulkhayr oo mu'mina aayaddaasaan ku akhriyo uu adkaysan kari waayey buu yidhi markaasuu yidhi yaa jibriil yaa muxamed ilaahay wuxuu yidhi wacizatii wajalaalii wairtifaacii fowqa carshii laa tabkii caynu cabdin fi dunya min makhaafatii ilaa akhartu daxikaha fi ljanna ilaahay baa le sharaftayda weynidayda carshigayga sare ayaan ku dhaartee addoommahayga ka mida adduunyada dusheeda ma ooyo cabsadayda lama ooyo haddii la helose maalinka la qatan yahay la qaawan yahay qiyaamaha ayaan qosolkiisa badiyaabaa ilaahay yidhi 60 sano ayuu ku dhammaysanayaa taacaddii ilaahay iyo cabsidiisii iyo khawf iyo khashyad iyo bukaa abaalgudkiisa wuxuu noqonayaa maalinka la qatan yahay la qaawan yahay ayuu carshiga hoostiida kursi loo dhigaya uu qoslaya allah inaga dhiga kuwaas fadadkii hore qulubtoodu markuu iftiinku galay nuur aliimaan iyo nuur alcilmi iyo nuur alqur'aan iyo nuur alhidaaya markay afartaa nuur qalbigooga uu saameeyey aakhiradii baa u caddaatay qur-aankay fahmeen waxyigiibay fahmeen cumar iyo abubakar markuu nebigu intiqaalay calayhi salaatu wasalaam ayay yidhaahdeen abubakar baa ku yidhi cumarow ummu ayman inooge hambuuqanne sidii nebiguba u ziyaaranaya hanu ziyaaranay inooge markaasuu wayse soo raaceen ummu ayman bay u yimaadeen markaasuu mar alliya markay aragtay abubakar iyo cumar oo wada socda ummu ayman way lilmaysay markaasuu abubakar baa ku yidhi yaa ummu ayman miyaanad ogeyn nebiga ilaahay agtii inay u khayr badan tahay ma nebiga baad nagu xasuusanaysaa macnuhu weeyaane waxay tidhi waan ogahay nebi maxamed alla agtii inay u khayr badan tahay waan ogahay waxaan la ooyay geeridiisa kama ooyine warkii samada nooga imanaya baa naga go-ay bay tidhi cajiib bal ummaddu siday qur-aanka ugu xidhneed u fiirso dhegayso oo faham gabadhay walaasheeda muslimaday zamanka dadku siday qur-aanka ugu xidhnaayeen eeg rag iyo dumar maantana maxaa lagu xidhan yahay maanta iimaanku waa maxay takdiibun binnadar wa tasdiiqun bilkhabar waxay naf ishu arkaysa o dhan beenee wax samada ka yimid ee warana rumee hada huwa aliimaan qur-aanka iyo xadiiska rumee warkoogana qaado
wixii labadaa ka baxsanna ha yeelin maxaa yeelay waa been waxba kama soconayaan labadaasunbaa dhaba labadaa warkooga inaad qaadatana farad bay kugu tahay dadkii markay warkaa qaateen adduunkan iyo aakhiro way ku liibaaneen marka nolosha adduunyada maxay tahay ba walaalayaal maxaa la iskugu daalinba qadra daruura adduunyada ka isticmaal ha dhex degin guri bilaa musqula ma dhici karto laakiin musqusha la dhex seexan maayo markay xaaja ku qabato unbaad gali waad ka soo bixi haddii uu yidhahdo qofku ka warrama intuu firaashkii qaato yidhaha musqushaan dhex seexanaya maxaa la odhanayaa adduunyada waa caynka haddii uu yidhahdo qofku tanun baan aqaanaa tii dambe ma aqaana ee qorshahayga way ka baxday tanun baan aqaanaa hadduu yidhahdo waa majnuun uu waalan yahay qofkaas in la dabiibu u baahan yahay adduunyada isticmaal lama diidano laakiin sideed u isticmaalaysaa sida ninka guriga le musqusha uu isticmaalo adduunyada u isticmaal qadra daruura adduunyada ka qaado qadra daruura meeshaad u socoto waa aakhiro weeyaan ha iloobin ha halmaamin arsaaqada kasbiguna inuu ku dhaafin daacadda ilaahay arsaaqadii kasbigaagu inuu ku seejin الرزق بقدر المقدر baa la yidhi arsaaqadu waa inta ilaahay ku qadaray weeyaan wax ziyaada ma helaysid arsaaqadu waa inta ilaahay ku qadaray caalamkan waa caalam yar marka loo eego caalamka qabriguna marka loo eego caalamka qiyaamaha uu yaraanaya caalamka qiyaamaha marka loo eego caalamul janna wan naarna caalamkaasna uu yaraanaya isna laakiin maxaa lagu badbaadayaa waxaa lagu badbaadaya halkana laga qaadanaya waladadka ummuka ya bna aadama baakiyan wannaasu xawlaka yadxakuuna suruura faxfad linafsika an takuna idaa bakaw fii yowmi mawtika daaxikan masruura ilaahay nin shaacira wuxuu yidhi ina aadanow maalintii adduunyada aad imanaysay waxay hooyadaa ku dhashay adoo ooyaya dadkuna agtaada ay faraxsan yihiin cunuga markuu dhalanayo baqaaq uu qaylaya isagu laakiin dadku way faraxsan yihiin faxfad linafsika naftaada intaad nooshahay ilaaliyo amarka ilaahay ku ilaaliyo diinta ilaahay ilaalso oo iimaanka ilaalso oo islaamnimada ilaalso oo amarka ilaahay ha sii dayn si maalintaad dhimanayso aad adduunyada uga tagtaa adigoo faraxsan dadkuna agtaada ay ku ooyaan dadku waa labada nina adduunyada wuxuu ka tagaa isagoo faraxsan ninna waa mustareex ninna waa mustaraax nin waa nin adduunyadii looga raaxeeyey oo daartii aakhirada raaxadii baa loo qaaday nina dhimashadiisa markuu dhinto dadkii baa ka raaxaysanaya hebel ma dhintay haa qaar baa odhanaya baguu dhintay kaasi fitnaawi buu ahaay baguu dhintay ninna waa nin mustaraaxa adduunyadii baa looga raaxeeyo caalamu tacab baa laga qaaday caalamu raaxa ayaa la geeyey caalamkii wixii bini aadamka u baahnaa lagu dhammaystiray baa loo qaaday maxaa yeelay adduunyada nolosheedu ma dhammaystirno haddaad shabaab tahay berri waad gaboobi haddaad maanta caafimaad qabto berri waad bukooni haddaad maanta qani tahay berri waad faqiiroobi haddaad maanta murugsan tahay haddaad maanta faraxsan tahay berri waad murugooni haddaad maanta shabaab tahayna berri waad gaboobi haddaad maanta nooshahayna berri waa dhiman adduunyadu ma dhammaystirmayso low kaana liibni aadama waadiya min dahab axaba an yakuuna lahu waadiyaan ina aadan haddii la siiyo tog dahab oo socda buu nebigu yidhi ku labaad buu jeclaan buu yidhi haddii ku labaad la siiyana ku saddexaad buu jeclaan buu yidhi ina aadan afkiisa wax kale ma buuxiyaane qabriga marka la geliya ciidda lagu guro unbuu dhargaa buu rasuulku yidhi adduunyada lagama dhargo ma dhargaysi maxaa yeele looguma talagelinba shahawaad waxay bini aadamku u baahan yahay adduunyada laguma dhammaystirin daar baa jirta lagu dhammaystira waxay naftu u baahan tahay haddaad subaxdii bal u fiirso magaalada dhowtonka meelahan aad tirahdaan centerfield baan idha anaku wasta almadiina waddada hanweyga ee u socota magaalada bartamaheega ayaa subaxdii maaragtaane rasha war oo zaxmada haddaad tiraa dadka halkee tegaysaan waxay ku dhahayaan waan shaqo tegaynaa galabtiina waddada kale ayaa zaxmada oo cidhiidhiya haddaad tiraa halkee tegaysaan wuxuu ku leeyahay waa raaxo tegaya gurigaygii baan tegayaa reerkaygii iyo oradaydii baan u tegayaa meesha shaqaduna waa meel gooniya meesha raaxaduna waa meel gooniya
adduunyadani meeshii lagu raaxaysanaya ma aha halkan shaqaa loo yimiday meesha raaxada waa loo noqon doonaa إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد بأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا تصحوا لا تسقموا أبدا تنعموا لا تبأسوا أبدا تشبوا لا تهرموا أبدا أهل الجنة وبرسولك يري مركي الجنة قلان أفر شيء بالله بشارين يا وعلى رنا أهل الجنة ما أنت لقى بلا بواحد ليه النلل أدي مشد دم بلهين شباب نمو أن قبوا دم بلهين نعمد أن دبات دم بلهين عافمات أن حنون دم بلهين بالله يا أين الدنيا حديث النبي كشيك يا ابن مسعود وريي يا أذنى أهل الجنة منزلا جنة دسك قليا كوجود رجير بالنبي مالك الشيكي حيوري وأنن كسر بحيا جنة بالنبي يقول جنة كسر بحيا قرقورة بك كسر بحيا الباب كي جنة إلهي بهر إيمانيا إلهي بأورنا يا عبدي أدون كيجيو أرض جنة قلوة تاس الباب كي جنة إيمانيا إني يسيب الله قدك يا جنة إني بحسنتي مركز النقطة يا رب جنة تك قل يقول تري وين بحدا مالن كدك ما هيست مركز لا أورنا يا ما بحدا أرض النقطة قل هذا أنا إيمانيا مر لبعض مر صدحات مركز أفراد إلهي أورنا يا أرض جنة قل أو تك أو قل جنة الدنيا دي يتوبن كيد بالله ده كيلي قاس الدنيا دي أي مسا توبن كيد وصاحب أرلده ويان أما واحد جنة يا لا الدنيا ما يلين الدنيا ما حيالا مركاسو أردنا يا أتسخر بي إله ما يقول دال إساء أو تضحك بي مسواد يقول قصل صادق أبو بكر كيه مسكح دي سيك كده عين رنتاس الدنيا دي يتوبن كيد بالغوسية سعو إمام قرطبي كتابه تذكره وحو كل شيء نينكاسي مدحوينا مركز الدولة لو مقعابو كورمير بو سميا دل كورنم بو صومرا قبلدا تولوينكا دستريجيدا ميلكاسو صومرا وزارة لها نينكاسي وحو يري هل كانوا كبلابا يا جنديسي هل كانوا كبلابا يا إلا دنا عكلا وكسو وريغيو ماشا ومر مرنا مر لبادشا كو قوان مايه سفر كا وحو كقادنا يا كون سنة مثل سنة كون سنة فياتي وحو إيمانيا الباب كي جنة ويسسوت هاقيا حور العين تسيبا كور إيمانيسا تنظر إليه وينظر إليها ابن عباس ويأجي مدو كلي هيا قادنا يسيبو دافرت السنة مسلسلات دلك جوكتان النظر فقط تعانقه ويعانقها وكبو ديا ويكسو بوديسا ويسكو دقيا والمعانقة قدر 40 سنة ابن عبد الله بن عباس معانقته كلية waxay saysanayaan 40 sanadood oo kale وصعنايا مخسيكي cuntada ay taalay buu fadhiisanaya 700 sano cuntada cunaya bas muddada u yar cuntada cuno 700 sano أين الدنيا maxay tahay adduunyadu حور العين توان كشاكين لهنا كله هواينكم ونلا فديان بيانكم ونلا دغيسنaya محاضرada حقوقنا waan sheegaynaa عجيب نعمة داسا إلى هيدتك مؤمنين تودياريي يطوف عليه 10,000 خادم النبي يقول نكا جنة قال يا دتك جنة قال أقول جغير أقول فقير سن أقول مزل فقير لما ده كره أقول جغير واحد دوشي الضواف يا ابو النبي يقول طبعا كن أو خادم بدول ضواف يا خادم كن كلا أرك مايو خادم كان شراب كي عنتده وسد كوكلا مسجدو غريها جنة ابو النبي يقولي سدا غريها الدنيا ما هنا سدا سي عرش وقال الله دام رسولك يقولي اصحابته ويا بين يا رسول الله غريها سدانو غلينا وحوري سدا شمبرا ودولا سنه غليسان بو يدي انت هذا عنيسان بيها العبيسان سندي كاظمين نغني مايان عنتده waxa isku bedelaysa daacadaas oo ka udgoon miskiga sharaabku wuxuu isku bedelayaa dhididkaas oo sawana miskiga ka udgoon ma dhimanayaan ma gaboobayaan ma daalayaan ma gaajoonayaan ma haraadayaan ma bukoonayaan calal xuma ma jirto oo qabyaalad ma jirto qabyaalad halka ma socon ma jirayso ونزعنا ما في صدورهم من غل الباب الجنة markay joogaan laba shayba waa laga dahiraya haday jirkoogina jannada intay galin baa la bedelayaa laabtooda wixii ku jiray ghil iyo xasad
iyo dabeecadii xunayd iyo buqdigii iyo wixiina halkaasaa lagaga reebaya. laa yasmacuuna fiiha lagwan ilaa salaama, wax kala maqli maayaan, salaama salaama bay maqlayaan. waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamun calaykum bima sabartum nuzulan min ghafuur, salaamun qawlan min rabbi raxiim. dhexdoodana waa salaam, malaa'igtuna way salaami, xagga salaamkana salaam baa ka imanaysa. salaantee ka imanaysa? salaamtaa waxay ka timidaa la odhanayaa min alxayi aladi laa yamuut ila alcabdi aladi laa yamuut. diinta iyo iimaanka islaamnimadu waxay bini aadanka siinaysaa sifo sifaadka ilaahay ka mid ah. alabad, sifat alabad buu yeelanaya qofka bini aadamku markuu jannada galo. min alxayi aladi laa yamuut waxaa la odhanayaa salaantani waxay ka timiday ilaahay noolahay aan dhimanayn, waxay u imatay addoonka ilaahay isaguna aan dhimanayn haddeed hole. nicmadaasaa ilaahay noo diyaariyey. nicmaddaa waxaan ku helaynin waan haysanaa, iimaankaan ku helaynaa, islaamnimadaan ku helaynaa. haweenkuna ilaahay waa u nicmeeyey oo nebiga ayaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ida almar'atu ayima imra'atin maatat wa zawjuha canha raadin dakhalat iljanna. raggu baa la yidhi waxyaabaha jannada ragga loogu ballan qaaday waaba la adkeeye, laakiin dumarku waxyaabaha jannada ku galeen waaba wax iska dhib yar. naagta gabadha dhimata buu nebigu yidhi haweeneyda dhimata iyaduu ninkeygu raadi ka yahay jannaday gashay buu rasuulku yidhi. rasuulku xadiis waxa uu ku yidhi dadka salaada tukada albaab bay jannada ku leeyihiin la yidhaah baabu salaa. dadka soonka laazima albaab bay ku leeyihiin baabu rayaan la yidhaah. dadka sadaqada bixiya albaab bay ku leeyihiin baabu sadaqa la yidhaah. dadka jihaadka u dadaala albaab bay ku leeyihiin baabuljihaad la yidhaah. abubakar baa yidhi biabi anta wa ummi ya rasuul allah, hooyaday aabbayba waan kugu fidayn oo kugu furanaye 8 albaabay jannadu leedahay, nin ka galayo looga yeedhaya ma jiraa buu yidhi. markaasuu nebigu uhi nacam wa arjuu an takuuna minhum, haa way jiraan rag 8 albaabee jannadaba looga yeedhayo la odhanayo kan ka soo gal, kan ka soo gal, way jiraan. raggaa inaad ka mid tahay baan rajayn buu rasuulku yidhi abubakar ow. abubakar keliya ka geli maayo 8 albaabee, waxaa la galaysa gabadha saalixadda. ida almar'atu sallad khamsahaa wa saamat shahrahaa wa ataacat zawjahaa wa xafidat farjahaa. hadday haweenaydu buu nebigu yidhi 5 waqtina tukato, bisha rabadaanna ay soonto, farjigeygana xumaanta ka dhowrsato, ninkaygana ay adeecdo, 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi. 8 albaabee jannadu leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi. hadday gabadha laga hela 4 camal, bisha rabadaan oy soonto, 5 waqti oo ilaaliso, xumaantoo ka dhowrsoonaato, iyo zawjkeyga way adeecdo, 4 gabadha laga hela buu rasuulku yidhi 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay abubakar daba joogsanee la geli doontaa qiyaamaha. waa la weydiiyey nebiga, gabadhu way weydiiyeen saxaabiyaadku, haweenka muuminaadka iyo xuralcaynta midkee fadli badan baa lagu yidhi. caaishaa weydiisay, wuxuu nebigu yidhi gabadha muuminadda ayaa xuralcaynta ka fadli badan buu yidhi. waxay tihi maxaan kaga fadli badannay? waaba xuralcayn oo ilaahay baa sameeyo nuur baa laga sameeye. wuxuu nebigu yidhi bisalaatihinna wa siyaamihinna wa taacatu aswaajihinna. waxay kaga fadli bateen xuralcayntu, haweenka muuminaadku xuralcaynta waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan, salaada ay tukanayaan, iyo raggooga ay adeecayaan. fadligiina iyo masabkiina diinta islaamku meel sarayna dhigtay. nin baa nebiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo horaanba. wuxuu nebigu yidhi hooyadaa, haddana hooyadaa, haddana hooyadaa, haddana aabbahaa buu rasuulku yidhi. dhegayso gabadhayda muslimaday, diinta islaamku hoos kumay dhigin, xaqaagiina may qarine, bal diinta islaamku xaqaagii kor bay u qaaday. kor sayidina cabdullaahi binu cumar buu nin u yimiday, lacalla hada alxadiis waa marfuuc weeyaan. cabdullaahi binu cumar buu u yimiday nin, markaasuu yidhi yaa ibnu cumar, hooyaday ii dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay, intaasoo mayl ayaan degta ku soo qaaday, waan dawaafsiiyey, carafa ayaan geeye, xaqeygii ma guday mise ma gudin? wuxuu ku yidhi xaqeygii kugu lahaydood gudday iska daaye, maalinkii ay yaraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysay inaad ka siibatay, maalinkaa keliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygii maad soo celin buu ka yidhi. xaqiina waad leedihiin, xaqiina diinta islaamku meel bay ku tiirisee, adiguna isku xadgudbin walaasheeda muslimaday. dhaqan baad leedahay, diin baad leedahay,
islaam baa tahay muuminad baa tahay waxaad ku danyataa dadkii haweenkii ilaahay adduunyadan uu raalliga kaga noqday waddadoodii maryam binta cimraan ku dayo aasiya bintu masaaxim ku dayo faaduma binta muxamed ku dayo khadiija bintu khuwaylad ku dayo dadkaasaa adduunkan iyo aakhira ku liibaanay sida waxa uu nebigu yidhi sal alla alay wasalam haweenka ilaahay afar buu ka doortay buu nebigu yidhi afartaasna waa maxay waa maryan waa nebi ciise hooyadii waa aasiya weeyaan waa aasiya guriga fircoon bay iyay deganayd halka beydka guriga ninka rabbinimada sheegtay guriga dhexdiisa ilahay ku caabuday aasiya faadumana waa ina muxamedo tacab iyo rafaadba waa u dul qaadatay adduunyadana way ka saay qaadatay waa khadiijo oo qofkii u horreeyey diinta islaamka soo galay waa khadiija qof ugu horreeyey oo diinta islaamka dhaqaalo ku bixiyana khadiija ahayd diinta islaamku meel sarayna dhigtay raabica ayaa la weydiiye o lagu yidhi raabicay haweenku imaamna ma noqdaan amiirana ma noqdaan maxay ku dhacda nebiyana ma noqdaan maxay ku dhacdaan la yidhi waxay tidhi gabadh xikmad lahaydoo afartaaba annaka unbaa dhalla bay tidhi subxaan allah caqligu waa cajiib caqliga allah inoo hagaajiyo boqoradana annaka unbaa dhalla imaamyadana annaka unbaa dhalla nebiyadana annaka unbaa tarbiyadanoo dhalla bay tidhi allah ina fahamsiiyo khayrulkalaami maa qalla wadalla ilaahay diintaa buuna siiya islaamnimada diintaa inaan adkaysano oo nicmada u aragno nicmad u aragno waa nicmade ayaa la doonayaa walaalayaal oo dalkanaan imanay dhaqankeennii iyo diinteennii iyo akhlaaqdeennii iyo caqiidadeennii inuusan waxba ka bedelin ittaqi llaha xayumaa kunta buu nebigu yidhi meeshaa doontaba joogoo ilaahay ka yaab badbaadadeenna aan ku badbaadaynana dalkan iyo meel kastan waxa weeyaan waa inakoo maaragtaanay dhammaanteen istaagna halkii nebigeennu istaagay calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ina siiyey dadaal hadday muslimiintu dadaalkaa fahmaan ay u kacaan iyakuna ay badbaadayaan usradoodii iyo dadkoogana ay badbaadin karayaan muuminka dhabta ma badilmay waxbuu badilaa lama saameeyo waxbuu saameeyaa dhowr nin oo caraba ayaa ka tegay khilaafadii dowlatul amawiya ardul islaam bay ka tegeen indonesia iyo malaysia u tegeen tijaara iyo business calaa manhaj alislaam bay ku tijaaraysanayeen akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii baa lagu islaamay akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii 8 kun buu ka diray cumar ka diray maaragtaanay madiina masar buu u diray 8 kun baa dalkii oo dhan badishay muuminku markuu u socdo hadafkiisu markuu yahay iclaa kalimati illaah ixyaa addiin fi lcaalam nashr nicma muuminku markuu ka dhiga hadafkiisa inuu islaamnimadan qaado caalamka gaadhsiiyo inuu nicmadan ummadda ugu yeedho inuu diintan caalamka uu meel walba u maro hadafkaa markuu muslimku hadaf ka dhigto uu u safro uu dhaqaalo u bixiyo u dhaxo u dhoofo ma badilmaya isagaa wax badilaya lama saamaynaya isagaa wax saamaynaya ta keliya aan ku badbaadayna waa maxay ee xifaadadeennu ay ku jirtaa waa inakoo ilaahay diinkiisa ka shaqayna rag iyo dumar ummaddan wuxuu kaga tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam manhajka uu kaga tegay waa maxay 3 shay zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd cilmi iyo camal iyo dacwa 3daa zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd nin kastoo saxaabiya gabadh kastoo saxaabiyada waxay ahaayeen caaliman bidiinihim diintooda way yaqaaneen caamilan bidiinihim diintoodana way ku camal falayeen daaciyan ilaa diinihim diintoodana ummadda way ugu baaqayeen alcilmi walcamal waaldacwa 3daas waxay ka soo baxeen manbacii masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam kuma tegin nebigu ummad maaragtaanay adduunya ku hamoonaysa kagama tegin caalamkee wuxuu kaga tegay ummad aakhiradu ay la weyn tahay oo diintu ay la weyn tahay oo iimaanku uu la weyn yahay oo islaamnimadu ay la weyn tahay cuqba banu naafic madiinu ka dhaqaaqay masar buu yimiday libiya ayuu yimiday muxiit alatlas maqrib intuu istaagay zamankan waaga zamanka dalkanaa joogno lama aqoonin faraskii intuu badda geliyey buu yidhi yaa rabbi low calimtu waraa hada albaxri unaasun laballaqtu calayhim laa ilaaha ila allah yaa rabbi haddaan ogahay baddaa dad inay ka shisheeyaan laa ilaaha ila allah baan gaadhsiin lahaa buu yidhi alaan arjac ila almadiina haddaan ku noqonayaa dalkaygii madiina maxaan u noqonayaa lianna alarda intahat leanna dhulkii baa dhammaaday buu yidhi haddeetoole uu celiyey faraskii jazaa'ir buu markaa ku dhintay halkaasaa lagu aasay madiinuu ku barbaaray cukaasha radia allahu canhu ree madiina ayuuhaa waxau ku aasan yahay suudaan aba ayub alansaari ree madiina ayuuhaa istanbul buu ku aasan yahay abi waqaas ree madiina ayuuhaa siin buu ku aasan yahay cabdiraxmaan alkhafiqi ree dimashq buu ahaa faraans buu ku aasan yahay
bilaal reer makuha wuxuu ku aasan yahay dimashq kam min asaxaaba caalamka ku aasan kam muslimiina dalkan maanta ku aasan laakiin hadafka asxaabtu u socdeen iyo hadafka muslimiinta maanta u socdaan waa laba aan islahayn oo isku dhoweyn weeyaan saamaxa hoosta waxba aygu qabanina hadafkay u socdeen iyaku iyo hadafkaan maanta u soconna iskuma dhowo walaalayaal lidaalika waa inaan niyaddeena bedelnaa dalka niyaddaan ku imanay waa inaan bedelnaa wa ilaa haddii kale khatar baan ku jirnaa niyaddeenni waan bedelaynaa maxaanu bedelaynaa inaan dalkan joogno laakiin aan diinta ilahay ka shaqayno oon ka bilowna shaqada diinta muslimiintii hor dalkan timid ime aawa dadka yimide dalkan ayna hum maanta inta soo galaysa maskiidka ku farxin ziyaaraadka bax jawladda bax raac jamaacadada dibadda u bax waad yaabi doontaa tastaqrib ayaa u soo baxaya innaka halkii nabiga taagan calayhi salaatu wasalaam man lam yahtama biumuuri lmuslimiin falaysa mina buu nebigu yuri falaysa minhum ninka muslimiinta dhibaatadooda ka walwalin ka murugoon naga mid maha buuhi annaka ama muslimiintaba ka mid maaha dhibaatada ugu weyne islaamka haysata waa maxay bucdu can iddiin dhibaatada ka weyn waa dhibaatadee ilaahay oo laga fogaaday dhibaatadee ka weyn allah ina fahamsiiyo dee niyadda ma bedelaa haadhahada dee bal wixii la niyaddii waan bedelow gacanta taag mustaacidiin dhahada oday baa beri nagu yidhi wacdigiinaasi uu macaan yahe bixitaanka on maad ka reebtaanaa buu yidhi kollay meel hoo u baahan hadal wax ma ka taraa ya saafir tajid ciwadan caman tufaariquhu wansab faina ladida alcayshi fi الnasabi inii ra'aytu rukuuda almaa'i yufsiduhu in saala taaba wain lam yajri lam yatibi alusud lawlaa firaaqu اlardi ma ftarasat wالsahmu lawla اlqawsi lam yusibi buuhi imaam shaafici libaaxu muxuu libax ku noqday kayntiisuu libax ku yahay muslimku wuxuu qiimo ku yeelanayaa markuu ka shaqeeyo shaqada diinta hadday biyuhu fadhiistaan waxaan ogaaday buuhi imaam shaafici biyuhu inay xumaanayaan hadday socdaanna inay biyuhu daahir yihiin cidda kalena ay daahirinayaan ummaddan socodkay qiimo ku leedahay walaalayaal fa insha allah niyooda inaad socotaan ziyaarta dadka socda nebi maxamed baa socday calayhi salaatu wasalaam khayru man daba calaa wajhi alardi waa ina cabdillaahi weeyaan ma ka fadli badan tahay adigu wa qaaluu ma lihada arasuul yaakulu الطacaam wayamshi fi اlaswaaq lawlaa unzila ilayhi malak fayakuna macahu nadiira waa maxay kan suuqa wareegaya nebiga lagu yidhi u wareegay halkay joogaan buu dadka nebigu ugu tegey dadku waa laba weeyaan muqbiliin iyo mudbiriin dad khayrka jecel iyo dad khayrka aan jeclayn iyo maa badan 90% ma soo galeen masaajida dacwadda waa maxay dacwadda masaajidka laga jeedinayana waa dacwatu raaqibiin baa la yidhaha dacwadda dibadda la tegayna waa dacwatu hayr araaqibiin baa la yidhaha labadana waa loo baahan yahay barkadda biyaha haddii laga darsado biyo lagu shubi waayo maxaa dhacaya haddii dadka dacwadda loogu yeedhi waayo masaajidda inta soo galaysa way dhammaan way dhoofayaan mid baa dhiman mid baa noqon mid baa xanuunsan mid baa waalan masaajidka xidluu ka soo bixi marka waa in la helaa dad shaqadii dibadda qabto ummadda kusoo xidh culummada iyo masaajidda marka jamacaadku wax kale lama socdaan wax jadiida ma wadaan mujtamacan iyo waxaa isku xidhayaan iyo culummada masaajidda faham walaal fa marka allah ina waafajiyo allahna inagu anfaco le jamacadduna berri weyna la joogaanna soo ziyaarta usbuuc kadibna kanada inay u gudbaan baa laga yaabaa waana nii soo noqon doonaa dee wixii diyaara inay ile martidu xaq bay leedahay ma tahay samaa ya dee martida in la yar dhaweeyena xaq bay u leedahay maxaad u dhaweyn laadihin isku noqda in sha allahu tacala waan ila joognaa allahna khayrkana waafajiyo wa sala allahu calaa sayidina moxamed